Caalamka muslimiinta ayaa ku kaceen 12,000 ay jirkeeda ku iibsan jirtay Mia Khalifa muddadii 3 bilood ay filimada anshax xumada samaynaysay. Mia Khalifa gabar 26 jir ah oo dhalatay dalka Lubnaan waxay ka mid tahay waqtigan gabdhaha adduunka ugu caansan uguna shacbiyada ballaaran. Sidoo kale waa qof ka shaqeysa arrimaha isboortiska iyo TV-yada Ameerika baraha bulshada caanka ah. balse mar ayay ahayd qof bulshada dhexdeeda aan sharaf ku lahayn aadna loo necbaa inkastoo wiilasha dhalinyarada jeclaayeen ee caalamka ku kala nool sababtoo ah waxay ahayd atariisho samaysa aflaamta anshax xumada ah. Bishii Oktoobar sanadkii 2014 Mia waxay ku biirtay shirkadda filimada anshax xumada sameeyaan maadaama shakhsiyadda dooqeeda noqotay. Isla December waxay noqotay gabadha looga doonis badan yahay websaytyada aflaam xumada laga daawado. Muslimiinta caalamka ayaa mar ku kaceen kadib markii ay soo bandhigtay muuqaalo iyadoo filmo anshax xumaha sameynayso balse labiska haweenka muslimka ah xiran sida xijaabka. Midaasna waxay sharaf dhac ku keenaysaa anagoo muslimiin ah waana lagu kacay gabadhan. Muddo 3 bilood kadib waxay go'aansatay inay iska dhaafto shaqadan foosha xun. Janaayo 2015 ayayna iskaga tagtay shirkadda samaysa filimada anshax xumada waxayna iska raasatay shaqooyin kale oo nadiif ah. 2018 shirkadaha filimada anshax xumada sameeyaan waxay sheegeen in Mia kaalinta labaad ku jirto gabdhaha lagu doonis badan yahay websaytyada laga daawado aflaam xumada iyadoo 3 sano ka maqneed shaqadaasi. Mia bishii Agoost ee sanadkii aan soo dhaafnay waxay Mia sheegtay inay ka heshay lacag gaaraysa 12,000 muddadii 3 bilood ay sameynaysay aflaamta anshax xumada ah. Maantana way ka qooqameynaysaa siday sheegtay. Waxay intaa ku dartay inay dadka agtooda sharaf ka weysay hawshaas markay ku guda jirtay. Mana isku qalman ayay tiri Mia 3 bilood hawshan ku jiray iyo lacagta aan ka helay siday aad ugu yareed. Micnaha quruxdeeda ayay 3 bilood ragga ka iibinaysay 12,000 kaliya ayayna ka soo gashay. Qoys muslim ah ayay ka soo jeedaa asal ahaan waa reer Lubnaan oo iyagoo ayaaba ugu horeeyay dadka ka soo horjeesteen dhaqan xumadeeda hore balse Mia diinteeda islaamka waxay ku bedelatay sida la sheegay oo Kirishtaan ayay noqotay waxayna qaadatay dhalasho Mareykan ah.